والد محد أولاده ugu ducayn la aday soo ma ogid nabiyadu inay u ducayn jireen awlaadooda soo ma ogid nabiyada walwal inuu hayay caruurtooda mustaqbalkooda dimad ay ka walwali jireen aakhiradooda ay ka walwali jireen bal fiiri nabi ibraahim ilmihiisu salaada ugu ducaynaya ilaahayow iga yeel mid tukada caruurteedana kuwa tukada ka yeel rabbi ijcalnii muqiima salaa wa min dhurriyyati wa nabi ibraahim calayhi salaam oo u walwalsan caruurtiisa oo le ilaahayow iga dhig mid salaada ooga caruurteedana ka dhig kuwa salaada nabi low banaanka waxaa jiray waxa maanta aan ka baqaynay qoomuluudnimada yaa banaanka jiray ilaahay buu ehelkiisa naftiisa u bari jiray rabbi najni wa ahli mimma yacmaluun ilaahu aniga ehelkayga naga kori aafadan banaanka taalla qoomuluudnimadan banaanka taalla annaga waxaad muddaa maba ka walwalsanin caruurtii bal luqmaan fiiri qur-aanka suu noo barayo aabe ilaahay weligaa ha u shirki yeelin laa tushrik billaah aabe salaada mar walba oog aabe wa'mur bilmacruuf wanha cani lmunkar aabe markaad soconayso saaha u socon aabe wax walbood samaysa ogow haddaanan kula joogin ilaahay subxaanahu watacaala aakhira wuu soo saaray innaha in takun mithqaala xabatin min khardalin takun fii sakhratin aw fi samaawaati aw fi lard ya'ti biha allah yaa bunaya aqimi salaa yaa bunaya wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar aabe sidaa ha u socon dhabankahaga dadka ha u jeedin wax walbuu kala hadlayaa nebi ibraahim waa adiga arkay salaadu ugu ducaynayaa nebi luud walwal baa haya ilaahu aafadan banaanka jirta aniya awlaadeeda naga kori bal u fiirso bal waxay xusuusinayaan nebi yacquub iyo nebi ibraahim caruurtooda diintooday xusuusinayaan yaa baniya in allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waa laba nebi yacquub ibraahim caruurtooda leen ogaada muslimiin baa tihiin caruurtayda muslimiin baa tihiin ogaada ilaahay kula kulma islaamnimada dariiqyadan kale ha raacina maanta annaga caruurteena ma ku dhahnaa aabe hooyo iska ilaali dariiqyadan faraha badan maxaa ka mid a dariiqyadan waxyaabahan isimka ku dhammaada maanta ee falsafadaha iyo ideolojiyadan faraha badan ee dhaawici kara caqidada awlaada liberalism individualism feminism postmodernism eastern mythicism western humanism waxa isimka ku dhammaado dhan waa aafo runtii khalkhal gelin karta caqiidadooda islaamka ma ka walwalnaa nebiyadu saasay u walwali jireen bal geeridu markay u timaado caruurtay u yeedhayaan nebi yacquub geeri baa u timid wuu dhimanayaa waa aabe dhimanaya wax kale ma hadal hal shay baa qalbigiisa ku culus halkaas shay buu ilaahay noo sheegay am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi geerida u timid wuu gartay inuu dhimanayo hal su-aalu caruurta weydiinaya waa nebi suu walwalsan yahay fiiri aabe waan dhimanayaa haddaan dhimanayaa laakiin su-aal baan qabaa maa tacbuduuna min bacdi haddaan dhinto yaad caabudi doontaa aniga maanta ma idhaa haddaan dhinto ilmahaygu laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah ma odhan doonaa haddaan dhinto gabadhaydu xijaabkay salaada ma wadi doontaa ilmahaygu hadday badbaadaan kuwa ay dhaleen en awowga u ahay en ayeyda u ahay habdhaqanka islaamka maku taagnaan doonaan waxaad moodaa inaan noocuma walwalkaasi uu naga dhammaaday su-aasha waxa weye ma u ducaysaa caruurta ogow ducada aan la soo celinin ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay waa marka waalidku awlaadda u duceeyo waalid fidnada banaanka jirtaay waa badan tahay annagaana garan lafayn inay badbaadi doonaan wallaahi fitnada banaanka taalaay way badan tahay waana mid wax burburisa weye maanta sidaa darteed waan saqda dhexe la kaco ilaahay lagu ag-ooyo layidhaha ilaahuna badbaadi ilaahu wax naga badbaadi ilaahu awlaada badbaadi ma dhahnaa inagu wiil walba oo darooga gadaya hooyo soomaaliya oo muslimadii aba soomaaliya dhalay wiil walba xabad dadka ku dilaya waalid soomaaliyeed oo muslimiina dhalay gabadh kastoo iyadoo qaawan maanta baraha bulshada dharkeeda iska bixisay akhlaaq xumo samaynaysa waalid soomaaliya muslimaa dhalay wiil walba oo isagoo heesaya gabdho la nigniikinaya is-ag dhigaya oo baraha bulshada wada garanaysa dadkaan ka hadlayo waalidiin soomaaliya muslimiina dhalay dhammaan baraha bulshada haddaad gasho meelahan atheismka iyo qoomuluudnimadan wax lagu waxaysiinayo maxamed iyo khadiijo miidhan baa ka buuxa dad magacyadaa wadaa ka buuxa waalidiin muslimiina dhalay walwalkaa may nagu jiraa inaga su-aashaa wey waxaan maanta rabaa inaan idhaahdo fadlan fafiruu ila allah ducada aan badino caruurta dartood sadaqa aan u bixino ilaah noo badbaadi gacmahan koru taagno sujuudda aan ugu ducayno fitanka maanta banaanka jira wax waalidku ay sawiran karaan runtii ma ah haddii marka kumanaan sana ka hor rusushii iyo nebiyadii ay baqayeen oo qoomuluudnimada banaanka taal ay ka baqayaan oo ilxaadka banaanka yaal ay ka baqayaan oo salaad la-aanta ay ka baqayaan oo ileen ilaahu annagana na hanuuni caruurteena salaada ku og caruurteena qoomuluudnimada ka ilaali war muslimiin baa tidhi in allah istafaa lakum addiina ha ku dhimanina wax kale xageen joognaa anagu xageen joognaa waalid walba fadlan ducada ha badiyo ilaahay awlaadeen ha xifdiyo innagana hayna xifdiyo waalidiinteena ha xifdiyo ummadeennana ha xifdiyo jannadan ha isuu kaayageeyo wasali allahuma calaa sayidina